أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري في صحيحه من شخصي يريد الله إلهي ولدونه به شخصي خيرا خير قفك إلهي ولدونه يفقه إلهي وفهم سياه هو شخصي في الدين دينك إلهي فهم سياه رواه البخاري في صحيحه حديث كاس بخاري أيا صحيحي سكوريي نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه هذا الذي سي أحاديث سي قيبة كمدو وحديث كالنبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحشيخ كتاب كان سفينها مناسبة وكيني أو وقب الله حديث كان كتاب كوحوي إنه شيخ الدرنسيو قفك حلقة علمك فريستي oo ilaahayba uu waafajiyey inuu cilmiba uu akhristo inuu yahay qof ilaahay uu khayr la doonay inuu yahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag ilaahay uu la doonay qofkiiba cilmigaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey maxaa yeelay nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaa wuxuu yidhi qofkii ilaahay khayr uu la doono ilaahay diinkuu fahamsiiyaa tanwiinka ama laba shaqalka khayran ku jira markii dhinaca balaaqada la yidhaaho waxaa la yidhaha tanwiinu tacdiim waa tanwiin tusinaysa weynayn macna ahaan waxay ka dhigan tahay khayran cadiiman man yurid illaahu bihi khayran cadiiman qofkii khayr weyn ilaahay ula doono diinkaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax ka fahamsiiyaa marka waxaad ogaataa haddiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu qadaray in cilmigaba aad raacato inaad tahay addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr uu la doonayo khayrkaas oo ah ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay jannadiisa inuu ilaahay kula doonay subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi magaca ilaahan ku bilaabaa allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista oo raxmaan waxaa loola jeedaa adduunka marka la joogo raxmadda ilaahay waa caam adduunka marka la joogo raxmadda ilaahay waa caam oo dadka mu'miniinta ah ee muslimiintana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu naxariistay towfiiqda ilaahay iimaanka uu siiyey diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey gaalada xataa raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka marka la joogo caafimaadka ay haystaan iyo amniga ay haystaan iyo nolosha ay haystaan waa qayb ka mida raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ee hadduusan ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa ilbiriqsi ayuu dhammaantood uu ku baabi'in karaa marka raxmaanka waxaa loola jeedaa waa raxmad guud oo adduunka yacni raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caam allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka ah ilaahay naxariista aakhiro laakiin marka la joogo si gaara ilaahay wuxuu ugu naxariistaa dadka mu'miniinta ah oo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannada geynayo oo ilaahay uu ka raalli noqonayo waa dadka mu'miniinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala basmaladan bisinkan sheekha wuxuu kitaabka ugu bilaabay ku dayasho uu ku dayanayo qur'aanka ilaahay maxaa yeelay qur-aanka ilaahay suurad walba ee suuradaha qur-aanka ka mid ah alla wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim ilaa suuratu tawba maahane suuratu tawba maahane suuradaha kale waxaa lagu bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim marka waa ku dayasho qur'aanka uu ku dayanayo sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu kaluu sheekhu ku camal fali xadiiskii abu daawuud iyo imaam axmed labaduba ay warinayeen oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu yidhi kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi araxmaani araxiim fa huwa abtar xadiiska abu daawuud uu warinayey nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi arrin kasta ee muhim ah
بسم الله الرحمن الرحيم aan lagu bilaabin waa arrin aan barako lahayn abtar waxaa loola jeedaa bimacnaa waa naaqis qaliilu lbaraka arrin kasta ee muhim ah waa in lagu bilaabo bismi illaahi الرaxmaan الraxiim yacni arrinku marba hadduu yahay arrin muhim ah oo shareecaduba ay raalli ka tahay waa in bismi illaahi الرaxmaan الraxiim lagu bilaabo tusaale ahaan marka aad kitaabka akhrisanaysid bismi illaahi الرaxmaan الraxiim waa inaad tidhaahid markaad wax qoraysid oo kitaab aad alifaysid bismi illaahi الرaxmaan الraxiim waa inaad tidhaahid markaad dersiga iyo casharada raacanaysid bismi illaahi الرaxmaan الraxiim waa inaad tidhaahid wax walba muhima ayaa nabigu sunneeyey salى اllahu عalayhi wasalam in bismi illaahi الرaxmaan الraxiim lagu bilaabo marka saasuu sheekhu kitaabka wuxuu ugu bilaawday bismi illaahi الرaxmaan الraxiim bisinkan marka wuxuu iska leeyahay axkaam fiqhi ah oo mar waxaa jira bisimku uu waajib yahay oo haddii aad ka tegtid lagu ciqaabayo mar waxaa jirta uu xaaraam noqonayo bismi illaahi الرaxmaan الraxiim inaad ku dhawaaqdo ay xaaraam noqonayso mar waxaa jirta sunno ah oo bismi illaahi الرaxmaan الraxiim inaad ku dhawaaqdo ay tahay sunno marna bismi illaahi الرaxmaan الraxiim dhawaqiisu wuxuu noqdaa makruuh ama karaahiyo afartaas xugum ayuu qaataa bismi illaahi الرaxmaan الraxiim marka uu waajibka yahay oo bismi illaahi الرaxmaan الraxiim inaad tiraahid ay waajib kugu noqonayso waa marka salaadda aad tukanaysid salaadda markaad tukanaysid faatixadii bismi illaahi الرaxmaan الraxiim haddii aadan ku bilaabin salaaddaadii waxba kama jiraan oo ma ansaxayso oo waxaad la mid tahay qof aan tukan oo kale qof aan tukan oo kale ayaad la mid tahay walidaalika bisinka xilliga salaadda waa waajib oo haddaad ka tegtid dee salaaddaadiiba ma ansixin salaaddu haddaysan ku ansixinna waxaad mutaysanaya cuquubada ilaahay subxaanahu wa tacaala marna bismi illaahi الرaxmaan الraxiim wuxuu noqdaa xaaraam in lagu dhawaaqo oo marka xaaraamta uu noqonayo waa cinda almuxarami lidaatih shay xaaraam ahoo daatadiisaba la xarimay haddii aad samaynaysid bismi illaahi الرaxmaan الraxiim inaad xaaraamtaa ku bilowdo waa xaaraan maxaa yeelay ficil ilaahay uusan raalli ka ahayn iyo waxa aad ku dhawaaqayso isma lahan tusaale ahaan qofkii hadduu qof muslim oo ilaahay dhiiggiisaba uu xarimay uu dilayo bismi illaahi الرaxmaan الraxiim inuu ku bilowdo waa xaaraan hadduu waxadayo bismi illaahi الرaxmaan الraxiim inuu ku bilowdo tuuganimadii waa xaaraan hadduu khamro cabayo inuu bismi illaahi الرaxmaan الraxiim ku bilowdo waa xaaraam wax walbee xaaraama looma adeegsan karo magaca ilaahay wax walba oo la xarimay oo shareecada islaamku xarimtay wasiilo iyo dariico loogama dhigan karo magaca ilaahay xaaraantaas looma adeegsan karo loomana isticmaali karo marna bisinku wuxuu noqdaa karaahiyo oo markuu karaahiyada uu noqonayo waa cinda almakruuh lidaatih shay daatadiisa sharcigu uu karaahiye ka dhigay haddii aad samaynaysid bismi illaahi الرaxmaan الraxiim karaahiyada inaad ku bilowdo lama ogola oo bisinku markaa wuxuu noqonaa karaahiyo tusaale ahaan ka nadfi shay haddii cira ay kaa soo dhalato cirada inaad iska jarjarto ood iska tifto waa karaahiyo lama ogola oo nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuu nahiyo wuu diiday cirada in la tifo ciradii tifiddeedii inaad bismi illaahi الرaxmaan الraxiim ku bilowdo waxay noqonaya karaahiyo shaygu hadduu karaahiyo yahana bismi illaahi الرaxmaan الraxiim looma adeegsan karo magaca ilaahay oo karaahiyu noqon hadduu shay aad samaynaysid xaaraam yahay magaca ilaahay xaaraamtaas looma adeegsan karo marka axkaamta afarta ah ayuu iska leeyahay bismi illaahi الرaxmaan الraxiim laakiin xukumka ibaaxada bannaanta sida raajixa ah bisinku ma lahan maxaa yeelay waxaa qaacido fiqhiya ah maa kaana asluhu annadba laa tactariihi اlibaaxa wixii asalkiisuba uu sunno ahaa yacni mubaax ma noqon karo asalkiisa wuxuu sunno ahaa mubaax ma noqon karo sida raajixa marna wuxuu noqdaa sunno basmaladu markay sunnada noqonayso waa cinda alumuur almuhima arrimaha muhimka ah oo sharcigu uu aad u daneeyey oo sharcigu uu jecel yahay marka arrimaha aad samaynaysid
sida marka aad qur'aanka akhrisanaysid oo kale kitaabada cilmiga markaad daalacanaysid oo akhrisanaysid kitaab markaad qorayso oo cilmi ah arrimaha muhimka ah oo dhan bismi illaahi raxmaani raxiim in lagu bilaabo waa sunno marka afartaa xugum ayuu iska leeyahay laakiin sida raajixa bisinku maruu mubaax yahay uu iska bannaan yaho oo xaaraam iyo karaahiye iyo sunno midna uusan noqonayn ma jirto oo qaacida fiqhiya waxay leedahay maa kaana asluhu annadba shayga asalkiisu hadduuba sunno ahaa laa tactariihi alibaaxa yacni ma noqon karo mubaax ma noqon karo bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kitaabkan safiinaha ah sheekhu inta uusan gudagelin axkaamtii fiqhiga ahayd intuusan u dhex gelin wuxuu ku bilaabay sida yacni kutubta culimmada mu'alifiinta caadadooduba ay tahay wanaagsanna wuxuu ku bilaabay khudbo hordhaca khudbadaas oo ka kooban basmalada bisinka inuu ku bilaabay iyo xamdiga ilaahay inuu mahad celiyo iyo inuu nabiga ku salliyo sala allahu wasalama wabaaraka calayh intaas khudbo ka kooban ayuu sheekhu kitaabka ku bilaabay ka bacdiu sheekhu wuxuu gudageli doonaa dhowr fasal oo kooban oo uu uga hadli doono usuuluddiin diinka usuushiisa ama caqiidada iyo tawxiidka uu dhowr fasal oo ugu horeeya uga hadli doonaa wixii ka dambeeya ayuu sheekhu wuxuu bilaabi doonaa axkaamtii fiqhiga ahayd iyo salaaddii axkaamteedii iyo tahaaradii alxamdu mahad lilaahi ilaaha mahad u sugnaatay allahaasoo rabbi alcaalamiin caalamiinta barbaariyey alcaalamiin caalamiin waa jamcu caalam caalama caalamiin lagu jamciyey caalam marka waxaa la yidhaha kullu maa siwa allah wixii ilaahay ka soo haray oo dhan oo makhluuqa ayaa waxaa la yidhaha caalam ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi u yahay wixii isaga ka soo haray oo dhan isagaa rabbi u ah oo ilaah u ah oo barbaariyey barbaarinta rabbida waxaa laga soo qaatay min atarbiya tarbiyada waxaa la yidhaha waa naqlu shay min xaalatin ilaa xaalatin ukhraa xataa yasila ilaa gaayatin araadaha almurabbi tarbiya waxaa la yidhaha naqlu shay min xaalatin ilaa xaala shaygan waa in xaaladda laga wareejiyo xaalad kale loo wareejiyo oo tusaale ahaan qofku hadduu daciif yahay xaalad wuxuu ku jiraa dacfi ah haddii ilaahay xaaladdaa kaa wareejiyo awood ilaahay uu ku yeelo oo uu ku koriyo waxaa la yidhaha tarbiya haddii aad ku sugnayd xaalad fujuur ahee faasiqnimo iyo faajirnimo diinta aadan ku wanaagsanayn oo xaaladdaa ilaahay intuu kaa raro qof diintii jecel ilaahay uu kaa dhigo qalbigaaga diin jacayl uu ku abuuro iyadana tarbiyo wa marka tarbiyad maxaynu ahayd waa naqlu shay min xaalatin ilaa xaalatin ukhraa shayga in xaalad laga bedelo xaalad kalena loo wareejiyo xataa yasila ilaa shaygu uu ka gaaro ilaa gaayatin ulajeedo araadaha almurabbi qofka wax tarbiyeynayo ulajeeddada uu rabo ilaa shaygu uu ka gaaro ilaahay marka subxaanahu wa tacaala tarbiyadiisa labay u qaybsantaa tarbiyada ilaahay tarbiya caama iyo tarbiya khaasa tarbiyada caamka ah makhluuqaadkao dhan ayuu ilaahay barbaariyaahu tarbiyeeyaa oo waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala iijaadka abuurista uu abuuray qofka makhluuqa waa nooc tarbiyada ka mid a awooddiisuu ilaahay ku abuuray kobcinta shaygaa uu kobcinaayo makhluuqa waa nooc tarbiyada ka mid oo xaalad intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka bedelo ilaa xaaladdii ilaahay ugu talagelay uu gaaro uu ku kobcinayo taasi waa tarbiya caama tarbiya khaasa waxaa weeye waa tawfiiqda dadka mu'miniinta ah ilaahay uu waafajinayo cibaadada iyo taacada ilaa ilaahay uu ka gaarsiiyo ulajeeddadii oo ahayd jannada inay galaan ilaa uu ka gaarsiiyo saa u tarbiyaha dadka mu'miniinta oo mar walbaba wuxuu ka guurinaya qofka muuminkaa xaalad dacfuliimaan iyo cibaadadiisa oo daciif ku ah waa barbaarinaa ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka uu ka gaarsiiyo meeshii ilaahay uu la doonaayey oo jannada ilaahay uu ka gaarsiiyo addoonka muuminka taa waxaa la yidhaha tarbiya khaas waa tarbiyo gaara waxay khaas ku tahay dadka mu'miniinta ah oo ilaahay uu jecel yahay alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaatay allahaasoo rabbi alcaalamiin murabbi alcaalamiin caalamiinta dhan barbaarinay
وبه بالله إلهي أون أي نستعين ككالم ويديسننا على أمور الدنيا أرمه هذا إلها أكالم ويديسننا وأرمها الدنيا إنه إلهي سبحانه وتعالى نوغو كالميو أيان إلهي ويديسننا وفدنا هي شرط الدنيا إلهي ونغا إلاليه ونغا حفظه ودينة إلهي سبحانه وتعالى الدنيا إلهي ونوها جاجيو شرط إذن إلهي ونغا حفظه الدنيا والدين على أمور الدين دين كأرمه سنة إلها ككالمه ويديسننا أرمها الدين كان إلها وكالمه ويديسننا أرمها الدين كإلى الجدد لقليه وحوي والدين كإن إلهي سبحانه وتعالى وكوافجيه مركو هربا كجعليسيه كبعدنا إلهي وكبره كبعدنا إلهي وكوافجيه إنها تكو عمل فش انت أسبى إلهي إنه نصيه والدين تننا إلهي إنه هجاجيه الدنيا لنا إلهي إنه هجاجيه إلها ككالمه ويديسننا وصلى الله أن حريسته وسلم الله النبت قليه على سيدنا سيد كان محمد نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه شيخ بسنكي كبعدي كتابك وحكو بالله الحمد لله رب العالمين محايل وحكو عمل فلي حديثك ابن حبان وصحيح سكوريي وها كل كلام لا يبدأ بالحمد لله فهو أجدم كل كلام لا يبدأ هذا الوالبون لقو بالله بالحمد لله فهو أجدم وناقص هذا الكستا والحمد لله أن لقو بالله وناقص حديث كلا رواية كلا ابن ماجه وحيهيد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم أرن كستا مهمة والحمد لله أن لقو بالله وأرن ناقص نغني مركز شيخ وسي كتاب كيس وسن ناقص النغنين وكتاب الله بركيه ونغضه وحكو بالله الحمد لله رب العالمين كبعدنا هدنا وحكو حجي قيبت السدحات إنه النبي كصلى صلى الله وسلم وبارك عليه يسوى مركز شيخ كو عمل فلايا قولك ألا يري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وضدك مؤمنين إلهي وأمري إن أي النبي كصلى صلى الله وسلم وبارك عليه نبي مركز صلى الله وسلم وبارك عليه قفك يعني مركو كصلينا يسؤال وحاجرته ليس ويديه والنبي مركز لليه وصلى الله على سيدنا نحريس قال إلهي سبحانه وتعالى سيد كأن الله نحريسته محل ولا جيدا نحريستاس سو النبي قال إلهي سبحانه وتعالى نحريس إلهي كمشبن ومقامات ووين إلهي سو مجارسين النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه نحريست الله ضلبيه محيتهاي بركة وحو كلية هاي شيخا كتابك شرحي مسألة ثاني مسألة قال إسماعيل بن موسى الحامدي وحو فإن قيل هدي ليرا إن الرحمة للنبي حاصلة صلى الله عليه وسلم فضلبها تحصيل الحاصل نبي رحمة ديس صلى الله عليه وسلم ووحو هايسته وإلهي وأن حريست النبي صلى الله عليه وسلم مركب ضلبشة حريس إلهي إن الله ضلبه محي فإذا إلى ذلك سو تحصيل حاصل نقنيس فالجواب وحو يهي أن المقصود بصلاتنا عليه قصد كاللقل يهي إن النبي كصلنا صلى الله عليه وسلم وطلب رحمة لم تكن رحمة أن هراء جيرين كوي هراء رحمة دي هراء وهيستي ما هنه رحمة كلا إن لو سي زيادية لو لجدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما من وقت إلا وهناك رحمة لم تحصل له وقت مجره إلا وقت والبابا النبي صلى الله عليه وسلم مقام كيسا وكزي زيادة يا رحمة الله ضلبي رحمة الله ضلبي مقام كيسا كزي زيادة يا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال يترقى في الكمالات إلى ما لا نهاية له نبي مركا كمسؤولا صلى الله عليه وسلم ومدي سهدي كسليان إنه سيد الله عيو كمالاتك وكسيد الله عيو إلى لقى قارو ميل عن دمات الهين مركا دلعاتو نبي وسيد الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قفك صلي ولغو صلينا يو ومدي سيكو صلينا يان زيادة أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينتفع بصلاتنا عليه على الصحيح سيد الصحراء نبي وكن نفعنا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه صلي مركز أن نكو صلينا لكن لا ينبغي مهبونا أن يقصد المصلي ذلك قفك النبي كو صلينا صلى الله عليه وسلم مهبونا إنه أساقو نيستو نبي قدنا إنه نيستو صلي النبي قدنا إنه نيستو مهبونا بل يقصد التوصل إلى ربه في نيل مقصوده لكن أساقو حول جدا
in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu dallacsiiyo adiga nabiga inaad ku sallinayso sala allahu calayh wasalam saasaa habboon in loo niyeysto in ilaahay kurbadaada uu ku faydayo salliga nabiga sala allahu calayh wasalam ilaahay adiga kugu dallacsiinayo saas in loo niyeysto ayaa wanaagsan wa sala allahu wasalama calaa sayidina moxamed khaatimi الnabiyiin khaatami bifatxi taa wa kasrihaa labadaba way bannaan tahay taada inaan hoos dhigno iyo in la kor dhigo labada way bannaan tahay haddii taada la hoos dhigo waxay noqonaya ismulfaacil khaatimi الnabiyiina nebiyaasha isagu khatimay oo ambiyadii ka horreysay nabigeena salى اllahu عalayh wasalam rasuul walba rasuulaa ka dambayn jiray rasuul walba ee la soo saaro mid kalea laga daba marin jiray laakiin nabigeena salى اllahu عalayh wasalam waa aakhiru اlambiyaa waa khaatamu اlambiyaa nebi isaga ka dambaynaya ma jiro ambiyada iyo rasusha isagaa lagu khatimay nabiga salى اllahu عalayh wasalam haddii taada la kor dhigoo la yidhaha khaatami الnabiyiin macnuhu wuxuu noqon faacal bimacnaa mafcuul khaatam bimacnaa makhtuum faacal bimacnaa mafcuul khaatami الnabiyiin nebiyaasha lagu khatimay nebiyaasha lagu khatimay ayuu noqon markaa wa aalihi nabiga aalkiisana allaha u naxariisto salى اllahu wasalam wbaaraka calayh aalka nabiga salى اllahu عalayh wasalam laba macnuu iska leeyahy aalka nabiga salى اllahu عalayh wasalam nabiga ahl waxaa u ah kullu mu'min taqi qof walba muumina oo ilaahay ka baqaya waa ahladii nebiga salى اllahu عalayh wasalam waxaa kaloo aalka la yidhaha qaraabadii nasab ahaan oo xagga abtirsiga ay ka dhexeeyeen nebiga salى اllahu عalayh wasalam ayagana aalka nebiga waa la yidhaha gaar ahaan banu haashim iyo banu lmuطalib labadaa macnoba aalku uu iska leeyahay laakiin hadda maqaamu ducaa haddii la joogo ilaa booska hadda waxaan maraynaa maqaamu ducaa ducaanu joognaa dad loo ducaynayo woy maqaamu ducaa haddii la joogo waxaa wanaagsan in lagu fasiro ummat اlijaaba ummadda nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi diintiisii iyo dacwadiisii aqbashay oo dhana ahlada nabiga noqonaysa salى اllahu عalayh wasalam maxaa yeelay xadiiskii wuxuu ahaa aalu muxamedin kulu taqiyin akhrajahu طabaraani nabiga waxaa ahl u ah salى اllahu عalayh wasalam ruux walba oo ilaahay ka baqaya waa nabiga ahladiisii salى اllahu عalayh wasalam marka kaasaa hadda loola jeedaa wahuwa alansabu bimaqaami الducaa walow caasina muuminku caasiba haba noqdo liannahum axwaju ila اducaa'i min gayrihim oo dadka caasiintaa iyagaaba ugu habboon in loo duceeyo iyagaaba ugu habboon in loo duceeyo wa ama fii maqaami الzakaat falmuraadu biاlaali hum banu haashim wa banu lmuطalib laakiin haddii la joogo baabu zakaat oo la yidhaha zakadu xaaraamay ka tahay ahalka nebiga salى اllahu عalayh wasalam waxaa loola jeedaa qaraabadii khaaska ahayd ee reer banu haashim iyo reer banu lmuطalib aa loola jeedaa haddii baabu zakaat la joogo ee lagu yidhahdo aalka nebiga salى اllahu عalayh wasalam zakadu xaaraamay ka tahay marka waxaa loola jeedaa banu haashim iyo banu lmuطalib laakiin haddiiba duca la joogo waxaa loola jeedaa ummaddii aqbashay diintii nabiga salى اllahu عalayh wasalama guud ahaan wa saxbihi nabiga asxaabtiisa salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi allaha u naxariisto ajmaciina dhammaantood waxaa kaloo sheekhu u duceeyey asxaabtii nabiga salى اllahu عalayh wasalam saxaabi waxaa la dhihi karaa qofka saxaabi la dhihi karo waa man اجtamaca muؤmina bالnabiy salى اllahu عalayh wasalam bacda الrisaala waa qofkii nabiga la kulmay salى اllahu عalayh wasalam isagoo mu'min ah markii rasuulka lasoo diray ka bacdi rasuulka markii lasoo diray oo ummadda loo soo diray ka bacdi qofkii nabiga rumeeyey nabigana la kulmay salى اllahu عalayh wasalam oo nolosha kula kulmay rumeeyeyna kaasaa waxaa la yidhaha saxaabi marka man اجtamaca muؤmina bالnebiy nebiga qofkii nolosha kula kulmay maxaa ku baxay bacda mamaati rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka markii ilaahay oofsaday ka bacdi qofkii nebiga arka oo ru'yo oo kale ku arka falaysa bisaxaabiyin saxaabi lama dhihi karo mu'minan binebiy la yidhi waxaa baxay dadkii nebiga nolosha ku arkay salى اllahu عalayh wasalam laakiin nebiga aan rumayn ee gaalada ahaa munaafiqiintii iyaguna lama dhihi karo asxaabtii nebiga salى اllahu عalayh wasalam walow qabla اlamri bاdacwa oo markaas uu arkayo nebiga salى اllahu عalayh wasalam intaan la amrin dacwada iyo diinta inuu faafiyo ka horba ha la kulmo hadduu rabo laakiin waa inuu bacda risaala uu rumeeyo nebiga salى اllahu عalayh wasalam
fii xaali xayaatihi rasuulku intuu noolaa waa inuu la kulmo ijtimaacan mutacaarafan kulankuna waa inuu yahay kulan caadiyahoo dabiici ah kulanka la yaqaano dabiiciga waa inuu yahay bian yakuuna fi lardi waa in ardada qofka uu kula kulmo si caadiya uu nabiga ula kulmo rumeeyana salى الlahu عalيه wasalam walow fii dulma meel mugdiyaba nabiga ha kula kulmo salى الlahu عalيه wasalam ow kaana acmaa wain lam yashcur bihi ama haba noqdo qofku qof indhoolo ah oo asxaabtii indhoolayaasha ahaa dhammaantood waxay ka mid yihiin asxaabta nabiga salى الlahu عalيه wasalam qofku inuu indhaleeyahay markuu nabiga la kulmayo rumaynayo shardi ma aha saxaabinimada yani inuu indhaleeyahay arag leeyahay shardi ma aha ow kaana ama ha noqdo hayra mumayis ama isagoo saqiiruu nabiga rumeeyo la kulmay salى الlahu عalيه wasalam ow maaran axaduhumaa calى alaakhar wax badan inuu la joogana shardi maaha xataa nabigoo meel fadhiyey salى الlahu عalيه wasalam xilligii nabiga hadduu arkay oo uu rumeeyey meeshana uu soo maray nabigoo meesha fadhiyey salى الlahu عalيه wasalam ama taagan waa saxaabi walow naa'iman haba hurdaayo hadduu doono nabigu salى الlahu عalيه wasalam wa saxbihi nabiga asxaabtiisa allah u naxariisto salى الlahu wasalam wbaaraka calayhi ajmaciina dhammaantood walaa xawla ka wareegid xiilo looga wareegsado can macsiyati illaahi macsiyada ilaahay xiilo aan uga wareegsanno lana annaga nooma sugnaanin sheekhu wuxuu ku leeyahay xiilad aan uga wareegsanno macsiyada ilaahay iyo dembiga aan uga wareegsanno iyo awood dembiga aan uga wareegsanno ka xiilaysanno annagu ma lihin walaa quwata awoodna calaa taacati illaah daacada ilaahay inaan xooggeenna aan ilaahay ku caabudnana lana annaga nooma sugnaanin ilaa billaahi bicawni illaah ilaahay kaalmadiisa maahane oo inaad dembiga ka joogsatana waxay kaaga xidhan tahay ilahay inuu dembiga kaa celiyo inaad daacada samayso ood cibaadaysatana waxay kaaga xidhan tahay ilahay inuu kuugu kaalmayo ku waafajiyo marka hore labaduba ilaahay kaaga xidhan yihiin subxaanahu wa tacaala oo markaad ilaahay caabudaysid waa in marka hore horta ilaahay ku waafajiyo subxaanahu wa tacaala tawfiiq ku siiyo ee caqli iyo awood iyo xoog ilaahay laguma caabudi karo subxaanahu wa tacaala hadduusan ku waafajin isagu caqli iyo karti iyo awoodna laysagama ilaalin karo dunuubta iyo macaasida hadduusan ilaahay kaa ilaalin subxaanahu wa tacaala marka wax walba waxay nooga xihan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala walaa xawla xiilad ka wareegsi can macsiyati illaahi macsiyada ee dembiga ilahay inaan ka warwareegsanno lana annaga nooma sugnaanin walaa quwata awood lana annaga nooma sugnaanin calaa taacati illah daacada ilaahay awoodaan ku samaysnana ma lihin ilaa billaah ilaa bicawni illah ilaahay kaalmihiisa maahane ilahay inuu noo kaalmeeyo mooye ay laa taxawula can macsiyati illah ila billah walaa quwata calaa taacati illah ila bicawni illah wax walba kaalmada ilaahay kaaga xidhan yahin haakada warada tafsiiruhu canhu nabiga saasuu ku fasiray salى الlahu عalيه wasalam nabiguna tafsiirkaa wuxuu ka soo guuriyey can jibriil malaku jibriil uu ka soo guuriyey marka kelimadan waa kelimo qaali ah walaa xawla walaa quwata ila billah allahaasoo alcaliy ee sarreeyey almurtafici الrutba sarreeyey waxaa loola jeedaa ilaahay awooddiisaa sarraysa sifaadkiisaa sarreeya cilmigiisaa sarreeya kalaamkiisaa sarreeya maqalkiisa maqalka makhluuqaadka ka sarreeya derajadiisa dhana alle sarraysa subxaanahu wa tacaala almunazahi laga fogeeyey camaa siwaah wixii isaga ka soo haray oo dhan laga nasahay wax walboo nusqaan ah laga fogeeyey oo laga nasahay kelimadan walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliyi alcadiim waa kelimo aad qaali u ah inay qaali tahana waxaad ka fahmi macnaheedaad ka fahmi macnaheedaad ka fahmiyo waxa weeye qofku markuu yidhi awood ilaahay aan ku caabudo melihi inuu ilaahay cibaadada iwaafajiyo maahane awood aan macsiyada ilaahay uga xiilaysto oon isaga celiyana melihi ilaa ilaahay inuu dembiga iga celiyo maahane hadduu qofku ereygaa ku dhawaaqay waxay tusine aلtabarii min alxawli wاlquwa qofku inuu ka beri noqday awooddiisa iyo kartidiisa oo ilaahay uu isu dhiibay oo uu qiray inuusan tabar haynin ilahay inuu u kaalmeeyo mooye oo caqligiisii iyo kartidiisii iyo awooddiisii inuu qofku uu ka beri noqday ilahayna uu isu dhiibay marka waa kelima tadullu calaa cubuudiya khaalisa lilahi tacaala waa kelima tusinaysa addoonnimo dhab ah inuu addoonkaasi ku sifoobay markuu kelimadan uu qofku qirsan yahay akhrisanayo walidaalika nabiga salى الlahu عalيه wasalam wuxuu amray kelimadan in la akhristo oo lagu wardiyo
maxaa yeele waa kelimo macnaheedu uu aad u ballaaran yahay. xadiis imaam axmed uu musnadkiisa ku warinayey ayaa nabiga salى الlahu عalيه wasalam wuxuu ku yidhi akhiruu badiya min qowli laa xawla walaa quwata ila billah, laa xawla walaa quwata ila billah badiya, fainaha kanzun min kunuuzi اljanna, waa kaydiyaalka ilaahay ka mida, yani min kunuuzi اljanna, jannada kaydiyaalkeeda kayd ka mida oo qofku markuu laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim uu leeyahay waxa weeye kayd jannadii uu sii kaydsanayo, waa abuur jannadii uu sii abuuranayo. akhiruu min qowli laa xawla walaa quwata ila billah fainaha kanzun min kunuuzi اljanna, waa kaydadka jannada ka mida ayuu ku tilmaamay nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh, maadaama ay tahay kelimo tusinaysa addoonnimo khaasa oo inuu addoonku uu ka beri noqday awooddiisii iyo xiiladiisii iyo caqligiisiiba uu ka beri noqday. faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saara wey. walaa xawla walaa quwata ila billah, allahaasoo alcaliyi sarreeyey, allahaasoo alcadiimi ee weynaa. cadamada loolama jeedo cadamat اljism, ilahay jismi waa ka mustaxiil, waxaa loola jeedaa alcadiimi sha'nuhu, ilahay sha'nigiisa iyo awooddiisu ay weyneyd ayaa loola jeeda. faslun hada kani faasilun mid wax kala saara wey fii bayaan dacaa'im alislaami wa asaasiha wa ajzaa'iha. fasalkani wuxuu ku hadli qofka muxuu muslim ku noqon karaa iyo arkaanu lislaam. qofka marka uu leeyahay waxaan ahay qof muslima, muxuu muslim qofka uu ku noqon karaa? arkaanu lislaami, islaamka tiirarkiisu 5 tiirarka islaamku waa 5. 5taasaa qofku uu ku noqon karaa qof muslim ah. marka sheekha intuusan weesaqaadkii iyo dahaaradii iyo axkaamtii uusan bilaabin wuxuu soo hormariyey arkaanu lislaam iyo arkaanu liimaan. maxaa yeelay qofka salaadiisa iyo dahaaradiisuba ma ansaxayaan ilaa inuu muslim noqdo maahani. marka axkaamta soo socota qaadashadeeda iyo dhaqangelinteeda waxaa shardi ah inuu qofku marka hore uu xerada muslimka iyo daa'irada islaamka uu ku dhex jiro. hadduusan daa'irada islaamka ku dhex jirin, soomka soo socda iyo zakada noo soo socota iyo salaada noo soo socda kulli kama ansaxayaan. marka hore qofka waa inuu xaqiijiyo inuu yahay qof muslim ah. arkaanu lislaami, islaamka tiirarkiisu 5 shahaadatu qiridu an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila allahu ilaahay mahane, wa anna muxameda nabiyullaahi muxamedna salى اllahu wasalam wabaaraka calayh rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay qiritaankeedii. tani waa alruknu اlأwal, waa rukniga ama tiirka ugu horeeya. qofku marka uu dhahayo qof muslimaan ahay, horta waa inuu qiro ilaahay mooye alla kale xaq lagu caabudi karo inuusan jirinin. nebiyullaahi moxamedna salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu u qiro risaalo, uu u qiro risaala, yacni in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dirsaday risaalada waa inuu qiro. amaa haddiiba ilaahayba subxaanahu wa tacaala towxiidkiisii iyo midnimada ilaahayba subxaanahu wa tacaala uusan qirsanayn, midnimada ilaahay waxaa loola jeedaa daatan wa ficlan. ilaahay subxaanahu wa tacaala daatadiisa iyo ficilkiisa iyo sifaadkiisaba inuu waaxid ku yahay qofku waa inuu qiro. daatan wa ficlan wa sifa, ilaahay daatadiisu inay waaxid tahay, oo daatada ilahay inay waaxid tahay ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala tarkiib oo murakab khaariji ah iyo murakab daakhiliya labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mustaxiil ka yahay. oo daatadeenna annaga way isi saaranta, annagu madax iyo gacmo iyo calool iyo lugaannu iska saaranna. daatada ilaahay subxaanahu wa tacaala xibno iyo jawaarix iskama saara. marka daatada ilahay inay waaxid tahay qofku waa inuu qiro. midda kale haddana waxdaaniye xagga oo khaarijkaana ilahay inuu mustaxiil ka yahayo oo laba ilaah inaysan jirin oo ilaaha xaqa lagu caabudo oo keliyahu uu jiro qofku waa inuu qiro. waxaa kaloo shardiga waxdaaniya xagga yacni sifada ah, tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waaxid uu yahay qofku waa inuu qiro. sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala cid kaloo yeelan karta oo shirko kula noqon karta aysan jirin, waa inuu qofku uu rumeeyo. sidaas oo kale ficilka ilaahay cid kaloo samayn karta inaysan jirin waa inuu qofku aamino.
وإلهي حق فعلكنا عد شريك ولا نقن كرتا أي سنجرين شهادة قرد وأن لا إله إله كلين سنجرين إلا الله إلهي مهان سبحانه وتعالى وهو متصف بكل كمال إنه إلهي سبحانه وتعالى كسف وبي كامل لمودن لا نهاية له رماد إنه سن إلهي إلهي ولا يعلمه إلا هو إساقم ويوحك لو حقيقة إلهي أغني سنجرين ومنزه عن كل نقص نسقان كستين إلهي لغن زهي ومنفرد بالملك والتدبير ملك يا ما ملك إنه إلهي إساقو لقاريهي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ذات ديس فعل كيس صفات كبا إنه إلهي كم ديسن يهي قفك وإنه رميسن يهي وأن محمد النبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه رسول الله إلهي رسول كيس إنه يهي رسولك إلهي وصادر سدي ومدن إنه مجدك كساره افتنك النور كوصاره ولا صادري إنه يهنا قفك وإنه قره هدي قفك ما أنت ودن توحيدك وكعل عليني لكن النبي الرسالة دي سأسنقر سنين صلى الله عليه وسلم مسلم من نقناي ولي وحكو باقي نقناي قال لماذا سي كفر جيسي أيوري باقي كويا وإقام الصلاة صلاة أوجد ديو قفك صلاة هذا وإنه تكذو وركن اللبات ركن اللبات صلاة قفك وإنه تكذو علماء مركب وحيسكوا فقسين ركن جهرة أو توحيد كأ هذه قفك وكتجو oo qofku rugniga horeba uu sanqir sanayn inuu gaal yahay kaafir yahay waa ijmaac waa la isku waafaqsan yahay salaada rugniga labaad oo salaada ah haddii salaadii qofku uu uga tago jahdan liwujubiha isagoo diidan salaada waajibnimadeedii oo dhahayaba salaadu waajib iguma aha isagoo qaangaar ah oo caaqil ah salaadii waajib iguma aha hadduu leeyahana inuu gaal yahay waa la isku waafaqsan yahay waa ijmaac laakiin khilaaf wuxuu ka jiraa hadduu qofku isagoo qaangaar ah uu leeyahay salaadii waajibay ugu tahay laakiin uusan haddana tukanaynin xukunkiisu muxuu noqon salaadii waajibkeedii waa ictiqaadsan yahay wuu aaminsan yahay laakiin haddana ficil laguma hayo ma tukanayo taasay culimmadu isku khilaafsan yihiin imaam axmed ibnu xambal iyo culimo kale waxay leeyihiin waa gaal qofkiiba salaada ka taga waa gaal xataa haba yidhaaho maradaa iga nijaasa iyo shaydaana i haye iyo allah isoo hanuuniye iyo cudurdaaryada taariku salaadka uu ku cudurdaarto o dhan ba ha ku cudurdaartee waa kaafir imaam axmed siduu qabo iyo culimo kale waa gaal ay leeyihiin waxay u deliishanayaan xadiiskii ahaa oo tirmidi iyo kayrkiiba ay warinayeen alcahdu aladii baynana wa baynahum alsalaa faman tarakahaa faqad kafar annaga iyo gaalada waxaa noo dhexaysa uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam salaadaa noo dhexaysa faman tarakahaa faqad kafar qofkii salaada ka taga wuu gaaloobay xadiiskaas imaam axmed iyo deliishanayaan laakiin imaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay qofka taariku salaadka ah haddii salaadiiba wujuubkeedii uu aaminsan yahay inay waajib ku tahay laakiin uu leeyahay shaydaana ay haysta iyo marada iga nijaasa iyo cudurdaarada taariku salaadka uu ku cudurdaaranayo imaamu shaafici wuxuu leeyahay waa muslim laakiin waa muslim caasi ah oo wanaagsanayn oo berrina noqonaya ahlu naar hadduusan ilaahay cafinin subxaanahu wa tacaala oo fadligiisa uusan ku cafinin imaamu shaafici wuxuu deliishanaa xadiiskii abu daawuud xadiis abu daawuud uu warinayey oo nabiga sala allahu calayh wasalam uu ku yidhi khamsu salawaatin iftaradahunna allahu tacaala shan salaadoodaa ilaahay farad yeelay man axsana wuduu'ahunna weesaqaadkeeda shantaas salaadood qofkii hagaajiya wa sallaahunna liwaqtihinna waqtigii loogu tala galana ku tukada wa atama rukuucahunna wa khushuucahunna shantaas salaadood rukuucoodii khushuucoodii dhammaystira kaana lahu cala allaahi cahdun an yakfira lah ilaahay wuxuu ballan u qaaday inuu u dembi dhaafayo salaadda qofka sidaa u ilaaliya ilaahay wuxuu ballan qaaday ilaahay inuu u dembi dhaafaayo waman lam yafcal qofkaan samaynin salaadaas falaysa lahu cala allaahi cahdun ilaahay wax ballanqaada oo ilaahay uu ka ballan qaaday ma jirto in shaaa gafara lahu wa in shaaa cadabah ilaahay hadduu doono waa u dembi dhaafi hadduu doonona ilaahay waa cadaaba qofkii salaadaha shantaa aan tukan marka imaamu shaafici xadiiska qaybtiisa dambe u deliishanaya abu daawuud uu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam qofkii salaadaha ka taga hadduu doono ilaahay waa u dembi dhaafi hadduu doonana ilaahay waa cadaabi
waxaana la ogsoon yahay mashiicada iyo ilaahay doonista ilaahay waxaa dhex geli karaa qof muslim ah. qof muslima la dhihi karaa yacni ilaahay hadduu doonana waa u dembi dhaafi, hadduu doonana ilaahay waa cadaabi subxaanahu wa tacaala. wa itaa'u zakaati rugniga saddexaad, wa itaa'u zakaati zakada dhiibiddeedii. rugniga saddexaad ee qofku uu muslim ku noqon karo waa zakada inuu bixiyo, ay icdaa'uhaa liman wujida min almustaxiqiin, dadkii xaqa u lahaa wixii laga helay oo fuqaradii iyo masaakiintii iyo ibnu sabiilkii iyo wixii laga helo mustaxiqiinta ah waa in zakada la siiyo fawran, si degdegana qofku u dhiibo idaa tamakana min aladaa, hadduuba qofku suurto gashado oo suurtagalba ay tahay zakadii inuu bixiyo maca wujuubi tacmiim, haddana ay waajib tahay in la kala gaarsiiyo hadday joogaan asnaaftii dhammaantood wahum 8 anwaac, waa ilaa 8 nooc dadka mustaxiqiinta ah oo uu ka mid yahay faqiirkii iyo miskiinkii iyo kii caamilkaayo zakada soo aruurinayay iyo dadkii mu'alafatulquluubkii iyo addoommadii iyo dadkaasi ay ka mid yihiin. wa itaa'u zakaati zakadii bixinteedii weeye qofku zakada inuu bixiyo haddiiba laga helo shuruuddii zakadu ay ku waajibaysa. wa sawmu ramadaana rugniga afaraad, ramadaanka soomkiisii. ramadaankana qofku waa inuu soomo. ramadaanka waxaa la farad yeelay furida fii shacbaan min asanati athaaniya min alhijra, sanadkii labaad ee taariikha hijriga ayaa la waajib yeelay ramadaanka soomkiisa. fasaama rasuulku wuxuu soomay salى اllahu عalيه wasalam 9 ramadaanaat, 9 ramadaan uu soomay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam, waaxidan kaamilan wa 8 nawaaqisu, 8 ramadaanna waxay ahaayeen naaqiso 29 ayuu ka soomay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam. hal ramadaanna nabigu waa dhammaystiray salى اllahu عalيه wasalam, 9kaa ramadaan ayuu soomay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam. marka rugniga afaraad ee qofku muslim uu ku noqon karo waa inuu ramadaanka uu soomo. wa xaju lbeyti, beytka loo xajintiisii. beytka waa in loo xajiyo, waa kacbadaa loola jeedaa beytka ilaahay. man qofkii uu xajiyo, qofkaasoo istidaaca awooda ilayhi ila albeyti, beytka ilaahay awooda, sabiilan min sabiilin xagga jidka ku awooda. qofkiiba awood u leh oo hanti uu ku xajiyo leh, inta uu maqan yahana ahaladii nafaqadu ay waajibka ku ahayd, nafaqadii uu uga tegi lahaana awood u leh, waxaa waajib ku noqonaya inuu soo xajiyo. wa xaju lbeyti, beytka xajintiisii la xajintiisii. man qof uu xajiyo, qofkaasoo istidaaca awooda ilayhi ila albeyti, beytkaas awooda, sabiilan min sabiilin xagga jidka ku awooda. walidaalika shantaasa waxaa la yidhaha arkaanu lislaam, oo islaamku uu ku dhisan yahay. haddii qofka arkaantaa shantaa laga helo waa qof muslim ah, qof muslima oo kaamila oo iimaankiisii islaamnimadiisu ay dhammaystiran tahay. walidaalika waa xaaraan qofka arkaantaa haddii laga helo shanta ah in la gaalaysiiyo waa xaaraan. in la gaalaysiiyo qof arkaantaa shanta laga helay waa xaaraam. hadduu qofku takfiirintaa iyo qofka muslimkaa arkaantaa laga helay uu takfiiriyo ama uu gaalaysiiyo, gaalnimadu isagay dib ugu soo laaban, sida nabigu uu sheegay salى اllahu wasalam wabaaraka calayh. xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayuu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam uu ku yidhi: ayumaa rajulin qaala liakhiihi ya kaafir faqad baa'a biha axaduhumaa, qofkii qof kale ku yidhaaha gaala tahay, faqad baa'a biha axaduhumaa, kelimadaa foosha xun labadooda midaa la laabanay. hadduu qofkii la gaalaysiiyey gaal rasmiya uusan ahayn oo arkaanulislaamba uu buuxiyey, oo markaa dee gaalnimadu waxay dib ugu soo laaban qofkii wax gaalaysiinayay, qofkii wax gaalaysiinayey ayay dib ugu laaban. xadiis kale oo bukhaari iyo muslim ay warinayeen, nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu ku yidhi: waman dacaa rajulan bikufrin, qofkii qof ugu yeera gaalnimo, ow qaala yidhaaha caduwullah, hebel waa cadowga ilaahay yidhaaha, walaysa kadalik, qofkiina uusan sidaa ahayn, ilaa xaara calayh, kufrigu asaguu dib ugu soo laabtaa. marka waa gaalnimo dadka muslimiinta la gaalaysiiyo, ayadaa waxay keeni su'ul khaatima, qofku inuu gebagabo xun iyo khaatimo xun uu ku dhinto ayay keeni. marka qofku waa inuu taxari badan iyo dadaal badan uu ka sameeyo gaalaysiinta qofka uu gaalaysiinayo. qofku hadduu muslim yahay, arkaantaasba uu oofiyey, arkaantaa uu buuxiyey, in la gaalaysiiyo waa dembi weyn oo kabiiro ah. gaalnimaduna qofka gaalaysiinayay dibay ugu soo laaban.
walidaalika nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiska ibni xibbaan oo kale waxaa jiray uu saxiixiisa ku warinayey oo rasuulka salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu yidhi ina akhwafa ma akhaafu calaykum rajulu qad qara'a alqur'an xatى ida daharat calayhi bahjatuh wa kana rid'an lilإslaam ramaa jaarahu bishirk xadiiska ibni xibbaan saxiixiisa uu ku warinayey nabiga salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu yidhi waxaan idinkaga baqayo waxaa ka mid ah qof qur'aankii bartay haddana islaamkii nuurkiisii iyo iftiinku markuu ka muuqday deriskiisii gaalnimo ku tuuray markaasaa rasuulka salى اllahu عalيyه wasalam la weydiiyey ayuhumaa أwlىa bishirk alraami am ilmarmiy labada qof keebaa gaalnimada ugu dhowaa la weydiiyey rasuulka salى اllahu عalيه wasalam qofka wax gaalaysiinaya miyaa gaalnimada u dhow mise kan la gaalaysiinayo muslimka ah nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi bal iraami qofka gaalnimada qofka kale ku tuuraya kaasaa gaalnimo u dhow uu yidhi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam marka halisteeday leedahay khatarteeday leedahay qofku waa inuu diintiisa iyo iimaankiisa uu ka waardiyeysto takfiirinta iyo gaalaysiinta qof muslima oo arkaantii buuxiyey inuusan qofku mar walbaba ku degdegin inuusan gaalaysiin faslun fii bayaani jamiici maa wajaba bihi اliimaanu walbaraahiinu daallatu calaa xaqiiqati اliimaan fasalkanna wuxuu uga hadlay sheekha intuusan axkaamtii fiqhiga gelin arkaanu اliimaan iimaanka tiirarkiisa arkaanu liimaani iimaanka tiirarkiisu sittatun lixwu iimaanku wuxuu ku dhisan yahay lix tiir an tu'mina waa inaad rumayso biاllaah ilaahay waa inaad rumayso oo ilaahay rumaynta la rumaynayo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bian tactaqida waa inaad aaminto cala tafsiil si tafsiiloo la kala saaray an allaha tacaala mawjuud qadiim ilaahay inuu jiro qadiim yahay baaqi yahay mukhaalif lilxawaadis makhluuqaadkiisa uu khilaafsan yahay mustagnin can kulli shay wax walba ilaahay inuu ka maarmo wax walba ilaahay uu ka kaaftoomo inaad rumaysid waaxid qaadir muriid caalim samiic basiir mutakalim wa cala alijmaal calaa ana lilahi kamaalaat laa tatanaaha waa inaad rumaysan tahay haddana alle subxaanahu wa tacaala inuu iska leeyahay dhammaystir aan dhammaad lahayn ilaahay waa kaamil kamaal aan dhammayd lahayn ayuu ilaahay dhammaystiran yahay subxaanahu wa tacala qofku waa inuu ilaahay sidaa u rumeeyo wa malaa'ikatihi rugniga labaad ilahay malaa'igtiisa waa inaad rumaysanta haddii malaa'igta ilaahay aad dafirto oo malaa'igta ilaahayba aadan rumaysnayn dee gaalaad tahay marka malaa'igta ilaahay haddii aadan rumaysnayn malaa'igta ilaahay waxaa la yidhaha waa akthar khalqi illaah makhluuqa ilahay yaa ugu badan haddii la yidhaha malaa'igta ilaahay yaa ugu fara badan maxaa yeele nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu tilmaamay habeenkii la dheelminaayey inuu soo arkay beytulmacmuur beytulmacmuur waa masjid samada ku yaalla oo malaa'igtu ay ku tukadaan nebigu salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu yidhi waxaa soo gala beytulmacmuur oo beytkaas samada ku yaalla masjidkaas samada ku yaalla malaa'igtu ay ku tukanayaan 70,000 70,000 oo malag ayaa soo gasha oo ku cibaadaysatay dibna uma soo laabtaan kuwo kaloo cusub oo 70,000 oo cusub ayaa haddana ku cibaadaysanaya iyaguna dib ugu soo laaban maayaan maalinta kale haddana 70,000 oo malag oo cusuba haddana beytulmacmuurka ku cibaadaysanaya ilaa qiyaami saaca walidaalika xadiiskaasa waxaa loo deliishaday malaa'igtu inay yihiin makhluuqaadka ilaahay kuwa ugu faraha badan inay yihiin nabiguna salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay meelaha ay ku cibaadaystaan inay ugu badan tahay samada xadiiskii tirmidi uu warinayey ayaa wuxuu ahaa maa min mawdicin 4 asaabica fi الsamaa ilaa wa malak saajid aw raakic cirkaas afartaa farood meel laga saaro 4 farood meel laga saaro cirka kama bannaana ilaa malagaa ku sujuudsan ama ku rukuucsan 4 farood kama bannaan uu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam cirkaas 4 farood meel laga saaro cirkaa kama bannaana wuu buuxaa malaa'igaa buuxisay ilaa malagaa ku sujuudsan ama ku rukuucsan taas marka waxaad ka fahmi adiga haddii addoonkaagan iska kufkufka badane iska dhacdhaca badan haddaad ilaahay caasiso inaan lagu baahnaynba intaasoo khalqi ilaahay aad daqiiqad walba iyo laxdo walba ilaahay u sujuudsan oo u rukuucsan adaa naftaadii halaagay un iyaga xataa kuwaas xataa uusan ilaahay u baahnayn cibaadadooda ciduu ilahay cibaadadiisa u baahan yahan jirin xadiis kale oo imaamu muslim saxiixiisa ku warinayay wuxuu nabigu ku tilmaamay salى اllahu عalيه wasalam malaa'igta maaddada laga abuuray inay tahan nuur khalaqa allahu اlmalaa'ikata min nuur waa xadiis imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey ilahay malaa'igta wuxuu ka abuuray uu yidhi
nabigu salى الlahu عalayه wasalam nuur iyo iftiima lagu abuuray malaa'igta waxaa kaloo waajiba inuu qofku rumeeyo annahum ajsaam nuuraaniya latiifa jismi nuur ah inuu yani ka samaysan yihiin oo dadka indhahooda laga qariyey laysuu dukuuran walaa inaathan ragna laguma tilmaami karo dumarna laguma tilmaami karo walaa khunaatha khunhiyaal nimow naagyalan laguma tilmaami karo laa aba lahum walaa umma aabbay hooyo ma lahan lahum ayaga uma sugnaanin saadiquuna waxay ka run sheegayaan fiima akhbaruu bihi can illaahi tacaala wixii ilaahay ay ka sheegaanna waa runoo been ma yaqaanaan malaa'igta ilaahay laa ya'kuluuna walaa yashrabuuna walaa yatanaakaxuun waxna ma cunaan waxna ma cabaan isma guursadaan walaa yatawaaladuun isma dhalaan walaa yanaamuuna ma seexdaan walaa tuktabu acmaaluhum acmaashoodana lama qoro lama diiwaan geliyo liannahum alkutaab iyagaaba wax qoraba iyagaa acmaasha qoray walaa yuxaasabuuna mana la xisaabiyo liannahum alxusaab iyagaaba wax xisaabiyaba walaa tuusanu acmaaluhum acmaashoodana lama miisaamo liannahum laa sayi'aati lahum iyagu sayi'aadba ma lahaba dembiba ma lahan wayuxsharuuna waxaa lala soo shiriyaa malaa'igta maalinta qiyaamaha maca aljinni waalinsi yashfacuuna way u shafeecaan fii cusaati bani aadam bani aadamka dadkooda caasiga ahay u shafeecaan wa yaraahum almu'minuuna fi ljanna mu'miniintuna jannaday ku arki doonaan malaa'igta wayadkhuluuna aljanna jannaday gelayaan malaa'igta wayatanaawaluuna waxay qaadanayaan annicmata fiiha nicmadii jannada dhexdeeda ay ku qaadanayaan bima shaa allah intii ilaahay doono ayay yani ilaahay ugu nicmaynaa subxaanahu wa tacaala laakiin qaala axmed suxaymi wuxuu yidhi wa jaa'a can mujaahid waxaa ka yimid maa yaqtadii waa mujaahid ibnu jabrin imaamu lmufasiriin mujaahid ibnu jabrin wuxuu yidhi maa yaqtadii wax keenaya ka yimid annahum iyaga laa ya'kuluuna fiiha jannada dhexdeeda xataa malaa'igtu wax kuma cunaan uu yidhi sheekh mujaahid walaa yashrabuuna jannada dhexdeedana waxna kuma cabaan uu yidhi mujaahid walaa yankixuuna jannada dhexdeedana waxba kuma nikaaxsadaan wa annahum yakuunuuna malaa'igtu waxay noqonayaan kamaa kaanuu fi dunya sida adduunyada ay ku ahayaanay jannadana ku ahaanayaan uu yidhi sheekh mujaahid wa haadaa yaqtadii wuxuu keeni hadalkan ana alxuura waalwildaana kadalik xuuracayntuna inay sida yihiin iyo wildaanta jannada iyaguna ka adeegaya inay sidaas oo kale ay yihiin marka malaa'igta sidaasoo marnaba ilaahay aan ku caasinaynin waa inuu qofku rumeeyo in malaa'igtaasi ay jirto wa kutubihi ilaahay kutubtiisa waa inaad rumaysid oo kutubta ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye macna aliimaan bilkutub altasdiiq biannaha kalaam ullah kutubta inay yihiin hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala almunazalu calaa rusulihi calayhim asalaatu wasalaam hadalka ilahay oo rususha lagu soo dejiyey inay yihiin waa inaad rumayso wa kullu maa tadammanathu xaqun wax walbee kutubta ilaahay ay sheegtay inay xaq yihiin waa inaad aaminto oo kutubta ilaahay subxaanahu wa tacaala way fara badan yihiin waxaa jiray kitaabkii towraadka ahaa nebiyullaahi muuse la siiyey waxaa jiray kitaabkii injiilkaa nebiyullaahi ciise la siiyey waxaa jiray kitaabkii zabuurkaa nebiyullaahi daawuud la siiyey kutubtaas samaawiyada ah dhammaantood waxaa laakiin lagu nasakhay oo waajiba qofku inuu rumeeyo kitaabkeenna qur'aankaa lagu nasakhay kitaabkeenna qur'aanka ayaa lagu nasakhay laakiin qofku waa inuu rumeeyo guud ahaan kutubtaasi inay jireen xaqna ay ahaan jireen laguna nasakhay kitaabkeenna qur'aanka lagu nasakhay waa inuu qofku uu rumeeyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa qofku waa inuu rumeeyo rususha waxaa weeye hum afdalu cibaadi illah waa inaad rumayso ilaahay rusul inuu soo dirsaday addoommada ilaahayna kuwa ugu qaalisan ugu fadliga badan inay yihiin qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi wa kullan fadalnaa cala alcaalamiin rususha dhammaantood waxaan ka fadilnay caalamiintaanu ka fadilnay bian tactaqida waa inaad aaminsan tahay ana allaha tacaala arsala lilkhalqi rusulan ilahay inuu makhluuqa rusul la soo diray rijaalan rusushaasoo rag ah laa yaclamu cadadahum ila allah rusushaas cadadkooda iyo xisaabtoodana ilahay un baa og subxaanahu wa tacala lama soo koobi karo ilaaha garanaya awaluhum aadam waxaa ugu horreeyey nebi aadam wa khaatimuhum waxaana ugu dembeeyey wa afdaluhum uguna fadli badan sayidina moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ugu fadli badan wa kulluhum rususha dhammaantood min nasli aadam waa faracii nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam wa annahum rusushu saadiquuna inay ka run sheegayaan waa inaad rumayso fii jamiici aqwaalihim hadalladoodoo dhan inuu xaq yahay oo ilaahayna marnaba aysan ku caasinayn waxay sheegaanna uu yahay xaq in la aamino la raacana ay waajib tahay fii dacwa risaala wa fii ma ballaquuhu can illaahi tacaala rasuulnimada ay sheegteen inay xaq ku sheegayaan diinta ay ilaahay xaggiisa nooga soo gaarsiiyeen inay xaq ku sheegayaan waa inaad rumayso wa bilyowmi maalintiina waa inaad rumaysan tahay yowmkaasoo alaakhiri ee dambeeyey maalin aakhiro inay jirtana waa inaad rumayso
oo khalaa'iqda dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo saarayo oo lala xisaabtamayo maalintaa waa inaad rumaysid bian tusadiqa waa inaad rumaysid biwujuudihi yowm alaakhira inuu jiro wa bijamiici ma shtamala calayh iyo yowm alaakhira wuxuu kulmiyo dhan kalxashri waalxisaab waaljaza waaljanna waannaar sumiya bidalika yowm alaakhira waxaa loogu magacaabay liannahu laa leyla bacdahu walaa nahaar habeen iyo maalin isaga kasii dambayn doonaahi ma jiro wa bilqadari qadarka ilaahayna waa inaad rumaysan tahay khayrihi khayri اlqadar qadarka ilaahay khayrkiisa wa sharihi shari اlqadar qadarka ilaahay shartiisana waa inaad rumayso min allaahi ilaahay xaggiisa khayr iyo sharba wixii ku soo qaabila xagga ilaahay inuu ka ahaadeen waa inaad rumayso tacaala ku dhahay wa bilqadari qadarka waa inaad rumayso khayrihi khayri اlqadar qadarka ilaahay khayrkiisa waa inaad rumayso wa sharihi shari اlqadar qadarka shartiisana waa inaad rumayso min allaahi ilaahay xaggiisa xaal labadoodaba ay ka ahaadeen tacaala ku dhahay mararka qaar adduunkan inta aad ku nooshahay mar waxaad ku faraxdaa ku soo wajahaya caafimaadka cilmiga maalka xalaasha ah cumrigaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu barakaynayo arrimaha qadarka khayrkaa ku soo wajahay waa inaad aaminto xagga ilahay inay kaaga yimaadeen oo intaadan dhalanba ifkaana lagu keenin in ilaahay hore kuugu qorsheeyo hore ilaahay kuugu qadaray mararka qaarna waxaa dhici karta shar inay ku soo wajahdo oo in xanuunno ay ku soo qaabilaan kurbooyin ay ku soo qaabilaan oo xagga ahalkaaga owlaaddaada qaraabadaada kurba ay kaa soo gaarto nafsadaada aad kurbooto ayaa dhici karta waxaasoo dhan waa inaad aaminto wax horay ilaahay kuugu qorsheeyey oo hore kuugu qadaray inay yihiin laakiin qadarta ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku hadduusan rumaysnayn qadarta ilaahay rumaynteedu waxay kaa daaweynayaan wax badan oo welwel iyo kurbo badan iyo isla hadal badan oo qalbiga aad iskala hadli lahayd qadarta ilaahay aad rumayso ayaa kaa daaweynaysa amaa qofku hadduusan qadarta ilaahay rumaysnayn waa dadka inta badan markii musiibooyinka yaru ay soo wajahaan intay isla hadlaan marka dambena waasha dadkaas ogaa waa dad iimaankoodu daciif yahay oo markii horeba si wanaagsan aan u rumaysnayn qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala amaa addoonku hadduu ilaahay ku xihan yahay rumaysan yahay qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa mar walbaba imaanaysa inuu yahay mutafaa'il almu'min yakuunu mutafaa'il laa mutashaa'il qofka muuminka mar walbaba mutafaa'ilo wixii sharahoo xataa soo wajaha wuxuu leeyahay khayraa iigu jira dhibaatadan isoo wajahdo dembi dhaaf aan ka heli yuu leeyahy dembi dhaaf ayaan ka heli ayuu leeyahay walidaalika dembi dhaafka uu ka helayo culimmadii hore salafka waxay dhihi jireen alkhayru fii ma اkhtaarahu allaahu lana khayrku wuxuu noogu jiraa wixii ilaahay noo dooray subxaanahu wa tacaala haddaad xanuunsato hadday kurba ku soo wajahdo waxa aad ka helaysaa ka badan naftuba haba dhibtooto oo nafta ha ku kurbooto laakiin midhaha aad ka helayso ayaa ka badan midda kale haddana haddaad adigu isbeddel aad qalbigaaga ku samayso ama qadarta ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbaba aad u carooto dee adigaad ajirkaagii iska baabi'iyey wax aad ka bedeli kartana waaqici ma jiro wixii kugu dhacayna waxba kama bedeli kartid adiga unbaa isdhibay oo iswelweliyey marka sida ugu habboon maxay tahay addoonku qadarta ilaahay qadaha ilaahay inuu rumeeyo waa qayb ka mida ama qaybta ugu weynba uu qofku isaga daaweyn karo isla hadalka iyo kurbooyinka iyo welwelka iyo walaaca waxaa la isaga daaweeyaa aliimaan bilqadar khayrihi wa sharihi qadarta ilahay qofku inuu rumaysan yahay qaala alfashaniyu wuxuu yidhi wa macna aliimaani bihi qadarta ilahay la rumaysan yahay macnaheeda waxaa loola jeeda an tactaqida waa inaad aaminto ana allaha tacaala qadara alkhayra washara qabla khalqi اlkhalq ilaahay khayrka iyo sharta inuu hore u qadaray intuusan makhluuqaba abuurin wa ana jamiica alkaa'inaati waxyaalaha ahaanayo dhan biqadaa'i illahi wa qadarihi qadarta ilahay qadaha ilahay inay yihiin huwa muriidun laha ashyaadaa ilahay isagaa sida la doonay wayakfi waxaa ku filan ictiqaadun jaazim bidalika ictiqaad go-an min gayri nasbi burhaan adoon deliil iyo waxyaalo kale aadan u keenin waa inaad dhab ah aad aaminto wax hore ilaahay u qadaray subxaanahu wa tacaala inay jiraan adduunka waxaa soo maray qoro la dhihi jiray qadariya oo inkiri jirtay maqaadiirta ilaahay qadarta ilahay inkiri jireen oo waxay dhihi jireen alamru unuf arrinku waa cusub yahayo markuu shaygu dhaco ayuu ilaahay ogaadaa laakiin wuxuu hore ilaahay u ogaa oo hore u qadaray ma jiray dhihi jireen waa qolooyin ahlulbidac oo la dhihi jiray qadariya waa qoradii saxaabiga cabdullahi bni cumar uu ka beri noqday oo uu yidhi u sheega sida muqadamada saxiixu muslim ku sugan u sheegay inaan beri ka ahay iyaguna ay beri iga yihiin
marka qadarta ilaahay la rumeeyo waa waxyaalaha ugu weyn oo qofka arkaanuul iimaan uu ugu taagnaan karo ama ugu ansixi karo waana waxyaalaha inta badan kurbooyinka iyo walwalka iyo walaaca qofku uu isaga daaweeyo wabilqadari khayrihi wa sharihi min allah ilahay xaggiisa u ka aadeen tacaala ilahay sha'nigiisu sarreeye wallahu subxaanahu wa tacaala aclam